siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa bilaabay qorshe ay hub iyo awood ciidan ku sameysanayaan sida looga hortagi karo qorshaha muddo kororsiga iyo doorasho boobka ee uu wada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. siyaasiyiintan waxay helayaan taageero caalami ah oo ka timid wadamada Carbeed kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhagaha uu ka furaystay baaqida beesha caalamka iyo saamilada siyaasadda dalka. Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Xuseen Roble, Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo dhammaantood oo ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa hadda go'aamiyay in Xasan Sheekh Maxamuud lagu risaay karo awood ciidan oo kaliya, waxayna ay qorsheeyeen inay hub iibsadaan ciidamada ay sameystaan kadibna ay ka hor istaagaan muddo kororsiga iyo doorasho boobka uu aaday waayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo doorashooyinka waayaan sida weyn la isku khilaafay. siyaasiyiintan saddex kamid oo dalka dibadiisa ku maqneed ayaa maanta dib Muqdisho ugu soo laabtay, waxayna gudaha u galeen dagaal siyaasadeed iyo awood ciidan oo ballaaran, waxayna ay sheegeen in uu dalka u aaday ama uu galay khatar amni oo sababi karta dowladnimada inay burburto. waxaa la filayaa in awoodooda ay mideeyaan kadibna ay midow ay sameystaan ayna bilaabaan kulamo gelgeli doono siyaasadda dalka oo ay ku qaban doonaan magaalada Muqdisho. qorshahan mucaaradku waxaa maalgelin doona dowladda Imaaraadka Carabta maadaama Xasan Sheekh Maxamuud ay si weyn iskaga soo horjeedaan, waana fursad ay helayaan mucaaradka ayna ku heli karaan awood dhaqaale iyo mid ciidan. Imaaraadka waxaa la sheegay inay sii bixiyeen $2 milyan si looga hortago qorshaha Turkiga iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo doonaya in Soomaaliya ay ka fushaan dana gaar ah sida ay noo xaqiijiyeen xubno mucaaradka ku dhow. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu qayb ka noqon doono midowga musharaxiinta isagoo abaabulka iyo taageerada dhaqaale la garab istaagi doono mucaaradka. xukuumadda hadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo fahansan dagaalka ku soo wajahan ayaa durba bilowday dacaayad iyo cay ay ka sameyso musharaxiinta mucaaradka, waxaana ay ku tilmaameen rag ay soo dirsadeen dalal Carbeed oo calooshood u shaqaystayaal ah. dowladda hadda uu taladahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama uu hogaamiyo oo xilka ku fuulay abaabul qabiil, dagaalkii badbaado qaran iyo mirinaayo iyo taageerada dowladda Imaaraadka Carabta. balse maanta Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu arkaa wax xun sunnadii uu shalay ku soo sameeyay asagoo xildoon ah. hadaba sidee u arkaa adiga?